kaydka raashinka qaranka ayaa gaarsiisay deegaamada Gumeys iyo Goori Samakaab iyo Cadaybuur raashin loogu talagalay 1000 qoys kaasi oo ay ka faa'iideysanayaan 6000 oo qof kaasi oo ah mid dhamaystiran waxaana uu garay halkaasi ka hadlay Xamse Cabdi Qurbaani isagoo sharaxay raashinkan ay soo gaarsiiyeen degmooyinkan waxaan joognaa deegaanka Gumeys xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan mas'uuliyiinta hay'adda diyaargarowga afoonka kaydka raashinka qaranka uu hormuudka ka yahay mudane Faysal Ali Sheekh Maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka Faysal Jaamac Xirsi Xawte deegaanka Gumeys waxaan soo gaarsiinay deeqdan 300 oo qoys oo ka kooban 6 item kuwaas oo isugu jira saliid sonkor bariis daqiiq baasto iyo timir waxaana si rasmi ah ugu wareejinaynaa oo nagala wareegaya odayaasha guddida iyo mas'uuliyiinta deegaanka Gumeys si rasmi ah ugu wareejinay iyadoo la gaarsiin doono bulshada baahida u qabta ay ka soo jeeda deegaanka Gumeys xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u tahay in deegaanada gobolka Sool ee hoos yimaada ay mar walba si joogto ah ula qaybsato dhibaatooyinka ka jira haddii ay noqoto ka warhaynta bulshada hay'adda diyaargarowga afoonka kaydka raashinka qaranku deegaanada hoos yimaada gobolka Sool waxay soo gaarsiisay 1000 qoys kuwaasi oo kala ahaa Gumeys 300 qoys Goori 300 qoys Samakaab 300 qoys Cadaybuur oo 100 qoys ah waxaana loogu talagalay bulshada ku dhaqan deegaanadan gobolka Sool hoos yimaada sidoo kale waxa ka hadlay halkaasi gudiyada kala duwan ee ku kala tirsan deegaanka Gumeys iyo waliba Samakaab iyagoona ka mahad celiyay raashinkan ay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaarsiisay deegaamadaasi xilli ay baahi weyn u qabeen isla markaana awlaada iyo qax iyo dhibaatooyinkii baahsanaa deegaamadaasi ka dhacay ay raadadkoodii ka sii muuqdaan dad fara badan ay u soo hayaameen deegaankan waana kuwan qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka iyo waliba gudiyada kala duwan ee deegaankaasi oo ka mahad celinaya raashinkan la soo gaarsiiyay ku suganahay magaalada Gumeys waxaan soo dhaweynayaa saaka oo noo yimid raashinka naloo keenay ee saaka noo yimid 3 item ka kooban waanu ka gudoomanay dadkii waday annagoo ah dadkii bulshada u shaqayn jiray ee guddida ahaa waanu gudoomanay raashinka waanu ku faraxsanahay saraaxa waayo xilli adag baa lagu jiraa xilli adag marka lagu jirana bulsho waliba dadkeeda iyada la dabaalata iyadaana kor u qaada hadda waasay ka dhigto Gumeysada raashinka naloo keenay waa gudoomanay dadkiisina waa soo dhaweynay wadankuna waa nabadgelyo ilaahay baa horta marka koobaad ma hadle waxaan ka mid nahay anagu odayaasha deegaanka Samakaab maanta waxaan soo gaaray raashin ka yimid xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adda diyaargarowga afoonka Norford raashinkaas oo ka kooban 6 item oo dhameystiran annagoo ku hadlana afka odayaashii iyo dhalinyaradii magaalada waan ka gudoonay waana sidii loogu talagalay baan dadkii baahiyaha loogu soo dhiibay raashinkaan u siinana waana soo dhaweynaynaa madaxa Norford maanta nala jooga waxaan kula rabnaa inaan halkan fariin uga dirno xukuumadda iyo hay'adaha internationalka ee kalaba inay meeshan nabadgelyo tahay oo wax dhibaato ka jira aysan jirin hay'ad kasta oo rabta inay dadka wax soo gaarsiisana ay iman karto iyo xukuumadda wixii ka imanaya halkan waxa weeye Samakaab dowladda Samakaab halkan waxaanu ku gudoomaynaa raashin aanu ka gudoomaynaa hay'adan Norford raashin tiradiisu dhan tahay 300 qoys oo ka ah 5 item 6 item mas'uuliyiintii deegaanka Samakaab waxaanu ka gudoonay deeq raashin hay'adda Norford 300 qoys sidii gudoomiyuhu sheegay 6 item dadka abaaruhu iyo colaaduhu waxyeeleeyeen loogu deeqay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin cidii noo keentay dhammaan hay'adaha kalena waxaan ku boorinaynaa inay keenaan deeqaha hay'adeed ee bini'aadamka lacago qutul daruuri hooy wax walba in loo keeno hay'adaha kalena aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa